murashax maxamed aamin cabdi cilmi duxood oo u tartamaya golaha wakiilada Somaliland ayaa deegaanada Kaabada Bari, Kaabada Galbeed, Candho Dhexe iyo Gumar gaarsiiyay deeq raashin ah. waxaanu murashaxu muddo 3 cisho biyo raashin bisil iyo raashin ka qaybinayay deegaanada gobolka Hawd. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay odayaasha haweenka deeqdani la soo gaarsiiyay iyo odayaal kamid ah wafdiga murashaxa, waxaana uga mahad celiyeen deeqdan uu soo gaarsiiyay waqtiga ay ku jiraan abaarta. iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxay yiraahdeen xildhibaanka maxamed cabdi siyaarag cabdi cilmi duxood waxaanu mahad labaad u naqaynaa intaasoo aqalay intaasoo qoysay intaasoo qof isu timi ninka ka u damqaday deeqda u keenay mar labaad baan mahad naqaynaa. waxaanu leenahay dembigeen iyo kii waalidkeen iyo kii walaalaheen ba ilaahay dhaafo, ceebteena aakhiriyadteena adduunka baa la aasto, ilaahay haynagu anfaco, ilaahay haynagu anfaco. ilka minta khayr qabo miskiin kalkaala muskoorada Allah inaga siiyo, dhulkana maslax Allah inaga siiyo, baytaadkeena Allah u naxariiso, maqana Allah inoo nabadgeliyo, baytaadkeena Allah u naxariiso, ceebteena aakhiriyadteena adduunka baa la aasto. Allahumma salli ala Muhammad. waxaynu leenahay maalinta ay maanta oo kale tahay inanku inoo baahan yahay محمد آمين محمد عبد علمي دحود إنه باهي هاي ما أنت أو كلا أينو لا صباحنا أينو مد كهانو مد عن كهانو هذا إن هاي مسابقة غير كلا مسابقة أساسا وقعي جوا سوتشر شام عمره وحنا كم ده هاي أضياء شكابة وحنو مهندقين إله النبض خبيث سكوك وذكرني وركب بلارنا إنه هاي marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaanka maxamed aamin ee waqtiga dadkiisa galay adag macna u damqaday ilaahay baa deeqda bixiyay taalkiisii waxba aan ka hakran Hawd iyo waqooyi toona. waxaanu leenahay nina dhaqashu ku dhex jooga buri nina dhuuni buu ku dhex jooga nina dhaqashu kugu dhabar jabay. dadku maanta wuu jilicsan yahay waqti adag buu galay biyo ma hayo raashin muu hayn wixii uu hayay muu ka hakran wax bixiyay wax gaarsiin kara dadka waa ilaahay. waxaanu leenahay xildhibaanka waqtiga adag inoo damqaday ee ina soo xasuustay codka inaynu siino oo inaan la baydhbaydhin ayaynu ballan aanu ka qaadaynaa. ilaahay baanu mahadnaqayaa ilaahay nabad qabka isugu keenay iyo goobtani marka waxaanu mahadnaqayaa kala odayaasha guud Muuse Abakor ee ka soo shaqeeyay ee arintayada iyo isku xidhkayaga ilaa muddo dheerba waday baanu mahadnaqayaa. waxaan raacinayaa maxamed aamin cabdi cilmi duxood oo xildhibaanka ilaa muddo horeba hawlgalkeeda iyo nidaamkeeda ku jiray halkana maanta joogana isna waan u mahadnaqayaa. si wanaagsan buu marar hore oo uu yimi na uga hawlgalay maantana ilaa 250 qoys buu raashinkooda goobtan aanu joogna uu ku bixiyay. waqti adag baa lagu jiraa waxaan leeyahay waxay Soomaalidu tiraahdaa midkeen carariya wuxuu yiri midkeen cararaba ceelku waa madal hawsheedii iyo kuridkeedii iyo saaka doorashadeedina way noo taalaa. waxaan leeyahay sidaa uu soo bixiyay ee waqtiga uu wax inoogu keenay codka ahdi aan ugu qaadno aan ku siino diyaar aan ugu ahaano caloosha iyo afkaba aan diyaar uga ahaano wixii aan kaarka qaadanina ha qaataan maanta imaka ka soo qaataan ahdigee waa ka marka hore waxaanu ilaahay baa mahad leh. marka xigta waxa mudan xildhibaanka maxamed aamin cabdi cilmi oo aanu aad iyo aad u taageersanahay. waxaan leeyahay dadweynahay joogay halkan haddii aanu nahay horena waanu u taageeray waananu ka shiray waananu isweydiinay cidda keliya ee aanu wax iska weydiinay Muuse Abakor haddii aanu nayna waa xildhibaan maxamed aamin
gole deegaan iyo xildhibaan kale midna wax iskama weydiin intaba dhulkaanu dhigno waxaan horta kaan la soo baxno waanu u diyaarnahay awoodana waanu saaraynaa inta ilaahay ka sokaysa ilaahayna ha nagu guuleeyo isagana ilaahay ha ku guuleeyo xilka maxamed amiinow adiguna kalsooni naga qab waxa kaloon raacin lahaa qoladeena shacbiga waxa jira dad maqan oo meelahan joogan qaadanin kaarkii codka had diyaar garoobaan oo arinta ha u diyaar garoobaan hana qaataan codka haddii aanay qaadan kaarka waxba dee kuma tarayaan maxamed amiin innaga reerkiina waxba kuma tarayaan iyo cid kala toona waxaan anigu gudoomiyaha candho dhexe shaqale faarax shaqadhi waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaanka marka hore xildhibaanka maxamed amiin iyo guddida muuse abakor waxa 200 oo aqal oo qoys ayay maanta raashin ku siiyay xildhibaanku meelo kale oo fara badanna way ku soo bixiyeen xildhibaanku waanaan u mahadnaqaynaa dadkiisaanu saaka u damqaday waxa weeyaan intaa waxaan raacinayaa marka ay doorashada gaadho xildhibaanka maxamed amiin waanu dooranaynaa waanaanu ugu ridaynaa waxaa ilaahayna ha nala qabto walaaliyaal ilaahay baa mahadle marka hore alxamdulilah ilaahay baynu ugu mahadnaqanaa waxaanan aad u salaamayaa waftiga ballaaran ee halkan inoogu yimi anigoo ah ismaaciil maxamed cabdi kana socda gumar waxa weeye 200 oo qoys baa maanta halkan ku qaatay raashinka oo uu keenay xildhibaanka maxamed cabdi cilmi xood marka waxaan leeyahay marka ay codka gaadhana sidaa loogu soo ururo sidaa loo qaato maanta halkan waxa isku yimi 200 oo qoys oo ka tirsan kuwa gumar ilaa kaabada ilaa candho dhexe raashinka baa loo keenay waxaana keenay xildhibaanka maxamed amiin cabdi cilmi waqtigan uu lagu jiro oo aad u kulul ayuu arkay dadkiisu xaaladii ku sugan yihiin sidaa darteed buu intaas oo qoys wuxuu ugu keenay caawimo u keenay weeye wuxuu kale uu ka doonayaan ma jiray wuxuu ka doonayaa waa cod inay ka faa'iideystaan waqtiga lagu jiro aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa sharaxa xisbiga wadani ka sharaxan ee maxamed amiin oo 200 ee qoys maanta kaabadii raashka ku siinaya oo ugu deeqay horena u siinayay markii ugu horeysayna maaha in badan oo kamida dadka sida raashinka ugu caawinayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqanaa maalinta codayntana waxaanu leenahay dadku codkooda maxamed amiin sawirkiisii waa arkaysaa sidaasaynu isku ognahay rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam marka hore waxaan halkan ka salaamayaa khiyaarta aynu martida u nahay xildhibaanka golaha wakiilada ee beesha muuse abakor oo xusbiga wadani ka sharaxan gudoomiyihii xusbiga wadani xamse ciise guddida halkan joogta ee muuse abakor ee guddida guud haweenka iyo dhalinyarta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankeenani wuxuu daba socdaa kulamo aynu in badan soo wadnay oo inoo soo bilaabmay 30 bisha saddexaad 31 bisha saddexaad 1 bisha afraad 2 bisha afraad oo maanta joogno oo intaba aynu qaybinaynay deeq uu ku deeqay xildhibaanka inooga sharaxan golaha wakiilada ee xusbiga wadani
maxamed amiin cabdi cilmi runtii waa xildhibaan ka damqaday dadkiisa u damqaday si weyn ula socda duruufaha jira abaaraha jira iyo haraadka ay ku sugan yihiin beeshiisa iyo deegaanadiisu mar labaad iyo mar saddexaad waynu mahadnaqaynaa waynu u ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay baa kaajisaysiin waxa aad la baxday ee dadkaaga gashatay waa subag xero ku daatay waa sadaqad ku baxday halkii loogu talagalay mar labaad iyo mar saddexaad waynu mahadnaqaynaa xildhibaanka kolley isaguna waqti buu leeyahay waqtigeeduu leeyahay waqtiga ay gaadho baahidiisu isaga maanta baahidiinnii baanu halkan u taaganay baahida xildhibaanku marka ay gaadho waxaa laydinka baahan yahay beeshan uu xildhibaanku ka soo jeedo beesha muuse abakor inaa ku caawisaan codka inaa qaadataan kaararka ilaa maalintaa u hiilisaan reer walba dee xildhibaan buu leeyahy reerka xildhibaankiisa la soo bixi waaya maalintaa waa reer fashilmay waa reer hadhay waxaan leenahay muuse abakorow yaydinaa fashilmin xildhibaankiinnu yuu fashilmin magaciinnu yuu fashilmin kaararka qaata waxaa loogu hiilinayana waa kaarka codaynta wey qofka maanta halkan fadhiya ee kaarkii qaadan wax alla wuxuu anfacayaa ma jirto ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Murudijeex xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi iyo murashax Maxamed Amiin Cabdi Cilmi Dixood oo ka warramay deeqdani ayaa waxa uu yidhi waxaan ka salaamayaa marka hore gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Murudijeex Xamse Ciise Cabdi odayd Axmed Sheekhow Kedmulaye Mahad Cumar Furre iyo dhammaan odayaasha kale ee beesha ee meesha isugu yimid oo ka mid yihiin gudoomiyaasha iyo maamulka kala duwan ee kaabada galbeed candha dhexe iyo gumarba iyo dhammaan ehelkiyo qaraabada meesha isugu yimid iyo bulshada saddexda deegaan ee maanta xaggan jooga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan saacadu way kulushahay waa goor jimca hadalka dheerayn maayo waxaan xaggan runtii ka leeyahay horta deeqdani waa mid calaakaraana oon bulshadayda sideeda ugu deeqay igama aha mid aan cod kaga doonayo ama mid kaambeyne waa tiitolnimo weeyaan waa tiitolnimo waana mid xaq laygu leeyahay ma haddaan musharax ma haddaan ahayn awalna waa keenaynay anoo sharaxnayn in badanoo dambana insha allah waxaan rajaynayaa inaan tan iyo tuka badan baynu keeni doonno waxaa kaloon xagga ka farayaa un maadaama oo komishinkii qaranku nala joogaan dad badan ayaa jooga maanta goobtan oo isugu yimid qof walba oo kaarkiisii weli aan doonano maanta ugu dambaysee inta kaarka aan la qaadin degmada la geynin iminkay fududahay qaadan layahay dhutusaad codkaaga ugu ciilbaxdid intaasaan runtii ku soo koobaya hadalkayga wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam ugu horreyn musharaxa golaha wakiilada ee xisbiga wadani gobolka Murudijeex Maxamed Amiin Cabdi Cilmi odayaasha halkan jooga dadka deegaankan muxuu ahaa kaabada galbeed candha dhexe iyo gobol waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan kulli waxaan joognaa xilli dambe joognaa muhiimadda u weyn horta halkan sugan waxa weeyaan in isku baraarujino waa maalintii ugu dambeysay si kaarka u qaadan lahayn campaign ma socono wali xilligii campaign ma gaadhin laakiin waxa weeyaan waa baraarujiniyo dadkeena jilicsan wixii la tirayo maanta xildhibaanku ugu soo deeqay 200 qoys waxaan leenahay xildhibaanka aad iyo aad buu mahadsan yahay halku ka soo saaranay ilaa wax khayr qabtaa ugu bedelaan leenahay waxaan aad iyo aad ku boorinayaa dhammaan haddaynu nahay dadka deegaanka gobolkan Hawd ama degmadan doorashada Beligubadle inaynu kaarka qaadano inaynu kaarka ugu hiilinayno cidii aad hadhow aad codka siinaysan baarlamaanka waxaan doonaynaa insha Allah bidilaa kariim waa buntirsi weeyaan inaan halkaas kaar ka noqon inaad ku wacyigelisaan reer gumareed reer candha dhexe kaarka la qaato ilaahay dadkii ilaahay waxay nooga baryahay inuu madar khayr qaba cirka naga siiyo